Assalaamu calaykum. Soo dhawaada dadka ku xiran channelkan Suldaan Qafaar Production. Kuna soo dhawaada qisadan xanuunka badan. Balse intaanan bilaawin qisadan, waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like saartid, channelkana subscribe saartid, gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalaha halkan soo gelina. Qisadan u guda galaynaa. Waxay u maleeyeen inay haysatay gabadhan qish imtixaan, laakiin markii ay baareen waxay ka heleen wax dhammaantood ka ooyiyey. Mid ka mid ah madaarista ku yaala dalka Yemen ayaa lagu qabtay imtixaankaas oo ay galeen gabdho kaliya. Markuu imtixaanka socday daqiiqada gabdhihii looga shakiyey inay haystaan qish imtixaan, macallimiinta imtixaanka ilaalinaysa ayaa bilaabay inay baaraan ardayda, laakiin markii la soo gaaray gabadhan waa diiday in la baaro baageeda. Macallimadda ayaa ku tiri fur baagaada, laakiin waa ay diiday oo waxay tiri wallaahi inaanan dhiibaynin baagayga. Macallimadii ayaa isku dayday inay xoog uga qaado, laakiin isla markii waxa soo gashay maamuladii madrasada. Maamuladii ayaa tiri iska dhaaf oo weydiisay waxay ku qarinayso boorsada, laakiin waxay u sheegtay inaysan halkan kusoo bandhigi karin waxay ku qarinayso boorsadeeda. Maamuladii ayaa gabadha u kaxaysay halkaasi xafiiska, halkaas oo ay la yaabanta macallimadii gabadha waxay ku qarinayso boorsada, waayo gabadha ardayda ugu fiican ayay ahayd oo laguma aqaanin imtixaan qashid iyo foodo. Maamuladii ayaa si naxariis leh u weydiisay waxay ku qarinayso boorsadeeda. Maamuladii ayaa baartay boorsadii oo markay baartay ka heshay bac ay ku jiraan cunto haraadi ah sida muufo, buskud iyo wixii la mid ah. Macallimadii ayaa weydiisay waa maxay cuntadan haraadiga ah. Gabadhii ayaa ku tiri cuntadan waa cuntada ay soo reebaan ardayda aan isku fasalka nahay. Markii ay ku tuuraan wadooyinka cuntada ay soo reebaan, anna waxaan nahay qof soo qaata oo ku aruursada boorsada. Kadib waan cuni jiray ayay tiri, inta kaloo soo hartana waxaan u geyn jiray walaalahay iyo hooyaday oo jooga guriga si ay ugu dhigtaan qada iyo casho. Annaga waxaanu nahay qoys faqiir ah, alla mooyee cid kale naga horeysana ma jirto ayay tiri. Sababtaan u diidanaa inaan furo boorsada waxay tiri waxaan diidayay inaan ku hor ceebo ardayda kale oo ila dhigta fasalka oo ayna ogaadaan sirta aan ku noolahay. Waxaana ka cudur daaranayaa habdhaqanka aan kula dhaqmay intaad baarayseen boorsadeyda. Maamuladii iyo macallimiinta kale ayaa hal mar ilin ka soo daadatay. Adiguna waxaa laga yaabaa dad jiiraankaada inay ku jiraan gabadhan camal ah. Marka waxaa idin leeyahay dadka muslimiinta loo gargaaro insha Allah. Jiiraankaada ka warqab. Marka channelka haddaad ku cusub tahay subscribe inoo saar. Qisadana see u aragtaa comment ka soo bixi insha Allah. Khayr in rajaynaya.